هذا داوديال maanta barnaamijkeena wargelin waxaanu ku soo tabineynaa magaalada Columbus Ohio stadiumka sports band oo uu ka dhacayo tartanka kubadda cagta ee gobolada Mareykanka iyo Canada oo maray sanadkiisa afraad waxyaalo fara badan ayaanu idin haynaa waraysiyo kala duwan dhalinyarada meesha joogta tababarayaasha ciyaaryahanada ugu qaalisan ee meesha jooga goolasha dhaliyeen goolka ugu fiicnaa oo dhaliyeen waxyaalo fara badan baanu idin haynaa Soomaaliya haddana waxay noo bilaabanaysaa barnaamijkeenii wargelin معان وميدان هوي لقا وراني ليوي معان وميدان هوي لقا وراني ليوي بيبل وحاد ولداي لكان هويو وانا لما هراني هقر لي وحقوق وانا لما هراني هقر لي وحقوق waata daawadayaal waxaad markale ku soo dhawaataan barnaamijkeena wargelin oo hadii goor ugu baratay inaan idiin soo gudbino waxyaabihii ugu dambeeyay toddobaadkan dhacay ama ka dhacan dhulkeena hooyo ama ka dhacan qurbaha oo Soomaali fara badan ay ku nooshahay waxa laga yaabaa inaad la yaabantiin maxaa ku dhacay studio lagu duubi jiray wargelin waxaanu joognaa tartan ka dhacaya magaalada Columbus oo isugu yimaadeen Soomaali aad u fara badan oo dhalinyaro u badan 20 kooxood ayaa isugu yimid tartankan aad arkaysaan oo Soomaali isugu timidna waxa isku keenay oo mas'uul ka ah ninkan garabkayga taagan magaciisa waxa la yiraahdaa Mukhtaar Saajin Mukhtaar waa garanayna inuu yahay kii afraad laakiin kulankan magaciisa muxuu ku saabsan yahay kulankan waxa la yiraahdaa kick out baa la yiraahdaa waxaan ku talagalnay maaragtay sida oo maaragtay isku taga maaragtay dhalinyarada Soomaaliyeed si ay maaragtay oo gobolka Sabaan u waano ay isku arkaan sanad kasta waan dhigtaa waa sanadkan kii afraad waxaan yiraahdaa yani waxa lagu magacaabaa kick out marka haddana yani alxamdulillaah rabbil aalamiin waxaan u maleynaa waa maalinta labaad socoto ciyaarta hal maalin baa noo soo haray waa gartay an wax ma nooga sheegi kartaa magaalooyinka ay ka kala yimaadeen dhalinyaradan faraha badan haa sida yani ka soo qaad sida Minnesota Utah ilaa iyo gobollo fara badan bay ka imaadeen sida New York waxay ka imaadeen Milwaukee Wisconsin adii yani gobollada kale aan maaragtay aan soo koobi karin laakiin 12 gobol baa maaragtay noo imaatay oo maaragtay oo kala imaadeen waxaan ka ahayn Ohio 8 team bay noogu imaatay 12 teamna waxay noogu imaadeen 12 kale gobol kale oo maaragtay oo America kamid ah noogu imaadeen waa gartay dad fara badan ayaa aaminsan dhalinyarada Soomaaliyeed hadii sportiga sidaan kale la soo keeno in dhibaatooyinka ay isu geystaan ama dadka kale u geystaan oo dhalinyarada qurbaha joogta inay yaraanayso markii sidaan kale la soo keeno fikradaas ma ku raacsan tahay mise fikrad kale ayaad qabtaa boqolkiiba boqol waan ku raacsanahay waxaan anaga nagu qasbay inaan anaga sameeyno ciyaarta tan ama kulanka kan taas baa nagu qasabtay kaliya dhalinyarada Soomaali ama dhalinyaro mid meel kasta ka imaadaan waxa kaliya ku walaaloobi karaan waa ciyaarta waxa kaliya wax maaragtay wixii xumaa ama yani waxyaabaha kale oo maaragtay ka reebi lahaa waa ciyaarta marka waxaan rajaynaynaa dhalinyarada way walaaloobeen way wadaagaan sanadkan kii afraad telefoon bay isdiraan marka hore ciyaartan intaysan bilaabin isma ka sii jirin dhalinyarada laakiin hadda gobol kasto gobolkan dhalinyarada ka baxdo gobolka kale ay tagto saaxiibo badan bay leeyihiin macnaha waxay ku saaxiibeen ciyaarta tan bay ku saaxiibeen isma aqoon jirin marka banooniga waa ciyaartaa waan filayaa waa ciyaari jirtay an marka aan xag dhinacee ayaad banooniga ka ciyaartaa marka Soomaali joogtayna halkii game ma ciyaartid meeqa gool ba dhalin jirtay ma 10 gool mise hal gool wallahi weligeyga horta aniga yani kuma dhahayo ciyaar saas u badan baan soo ciyaar laakiin aniga dhanka jubbada hoose baan ka imaaday waxaan u maleynayaa dhanka ugu ciyaarta badneedan u haysana anaga Soomaali ahaan inaan anaga ugu ciyaar fiicannahay jubbada hoose laakiin waxaan u maleynayaa weligey waxaan soo dhaliyay 20 gool baan soo dhaliyay laakiin hadda waa ka maaragtay retire baan ku noqday ciyaarta ma ciyaaro hadda waa gartay jubbada hoose marka leedahay waxaan rabaa inaan officer waa Kismaayo iyo areas baan maleynayaa areadaas gaar ahaan Kismaayo laakiin gaar ahaan waxaan ka imaaday tuulada la yiraahdo beesha Kobon waxa hadda ila jooga Cabdifataax Nuur Cabdullaahi Cabdifataax wax ma nooga sheegi kartaa sababta lagu sameeyay kulankan ay soo keentaan kooxaha imise kooxood ayaa isu yimid meeqa meelood ayay ka kala yimaadeen bismillaahir rahmaanir rahiim marka ugu horeysa waxaan ku hormarayaa salaan dhammaan bahda sportiga meel kasta ay joogaan dunida dacaladeeda barnaamijkan haddii aan ka hadlana wuxuu ku bilowday markii aan aragnay in dhalinyarada Soomaaliyeed u baahan yihiin
in loo sameeyo kulamo kala gedisan isugu bartaan oo ay uga tanaasulaan dhibaatooyinka sida drug iyo qabiilka iyo waxaana burburiye oo dhan ayaan u samaynay haatanna waxaa ka soo qayb galay sanadkan waa sanadkii afraad waxaana ka soo qayb galay 20 tiim oo 8 tiim ay Ohio tahay barnaamijkuna hadda wuxuu u socdaa si aad iyo aad u fiican alxamdulilah rabbil caalamiin wax dhiba oo ka dhacay ma jiraan kulamadii ciyaaraha kala duwan la qabtay si wanaagsan oo habsamila ayay u socdaan waxaan arkay takhaatiir hoos joogta takhaatiirtaas hoos joogta maxay yihiin maxaas u keentaan runtii xagga safety-ga waxaan promote garaynay dhakhaatiir free insurance ah oo maxaa la dhahay ciyaartooyga kii dhaawacma daaweynaysa qofkii dhaawac weyn gaarana isbitaalka gaarsiinaysa oo isbitaalka weyn geynaysa sidoo kale waxaan keenay booliska magaalada aan joogno Columbus oo runtii shaqadan qayb lixaad la ka geystay sidoo kale waxaa jooga guddi fara badan oo ka socda sida Columbus crew oo kale oo coachkoodii iyo guddigoodii ay daawanayaan waxaan rajaynaynaa ciyaartooyda Soomaaliyeed in mustaqbalka ay helaan jaanis wanaagsan qof ka soo Soomaaliya banooniga uu yaqaan sida loo ciyaar marka adi ahaantaada warsam ahaan dhinacee ayaa ka ciyaarta ama lambarka diyeesha ka ciyaarta mise portieri waa tahay ka jacaysa inaad ka ciyaarto wallahi aniga horta diyeesha calool korta ahay oo ragga hore daalay marka in runta la sheego banooniga waxa waay goalkeeper ahaan jiray laakiin diyeesha niyada ka ahaa laakiin calool iyo wax badan soo baxay dhalinyarnimadii la saga daahay marka in dadka laga qosino waa lagu qasban yahay gudiga meel kasta joogaan oo naga daawanayaan oo kaasa horta tan ka waramo kooxda Hilaac kooxdan waxaan bilownay 2003 ilaa waxaan wadnaa 7 sano oo imaana u jeedid ayagoo 10 sano jiraan u bilownay kubadda cagta qaarkood waxa waaye maanta 15 jiraan qaarkood 17 jiraan marka waa kuwa ka yarna waa haynaa marka waxaan u talagalnay inaan youthka Soomaalida maaragtay tababar fiican siino si ay uga qayb galaan tartamada iyo waxyaabaha xukun inaan uga ilaalino waata daawadayaal wali waxaan bartamaha ugu jirnaa barnaamijkeen wargelin kulankan la isugu yimid oo banooniga lagu ciyaarayo dad fara badan ayaa yimid kaliya maahan in kubadda cagta halkan lagu ciyaarayo waxaa jira dad Soomaaliyeed oo raba inay dadka caawiyaan waxaan hadda ila jooga gabdho Soomaaliyeed oo sameeyay urur la yiraahdo Youth Against Hunger waxa ay rabaan inay lacag ururiyaan dadka Soomaaliyeed ee gaajaysan laakiin waa isaga ka dhaxbaxaya hadda waxaan rabaa inaad Soomaalida la hadashaan horta marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan u sheego dadka daawanaya gabdha halkan ku koray way ama halkan ku dhashay marka af Soomaaliga way fahmayaan Ingiriis bay ku hadlayaan waxayna filayaan mustaqbalka inay af Soomaali si fiican u hadlaan sax sama u sheeg dadka af Soomaali warta inaan bartaan right we want to love to learn the language further inshallah marka taas waa ka gudubnay marka Ingiriis ay idinku sharaxayaan maxaad rabtaan inaad u sheegtaan Soomaalida idin daawanaysa hawlaha rabtaan inaad u qabataan ama hawlaha rabtaan inaad sameysaan basically we're asking for your help. Anything matters. We're just a bunch of kids. We can't do much, but we have big dreams and big aspirations. And anything. So if you want to donate, we have a website, youthagainsthunger.web.com. If you want to check it out, soon we'll have the contact info. And just help donate. Anything matters. Anything, really. saaxiibo fara badan ayaa leedihiin Facebooka, YouTubeka, website-yada Soomaaliya TV baa la ka daawanayaa yaa rabtaan halkan inaad ka salaantaan qofna ha ilmaamina maxay yeelay hadaa qof ilmaantiin hadhow guriga marka tagtaan bay idin xanaaqiyaan marka I'd like to give a shout out to my dad Shino Usman Noor, my mother Dunya Sheikh Ahmed, she's in Kenya right now, peace organization, my family in Canada, my family in Seattle, my Zamzi over there, Zaham Abdi, all the people in Ohio, people that came out, Abu over here. I want to give a shout out to all my family everywhere. I love you guys. I want to shout out to my mom, my dad Baba, I love you, my sister Yasmin, my sister Khair, my sister Asiya, my sister Sarah, I love you so much, my sister Sumaya, my brother Ali, my brother Mohammed, my brother Hashim, my brother Taha, my brother Zach, I love you Minnesota, my uncles, my aunts, family in Tokyo, London, everybody here who came out to support us, people who donated, thank you so much. Thanks Zamzi over here and Muna and all you guys, and Abu, and our crew, everyone who helped us out, and Haji, and Sumaya Ali. Okay, qof hilmaanteen waxa raba tibir aan siinaya marka hadaa qof hilmaanteen uu jiro waxa tiraahdaan qofki qof okay go ahead and Hoya, I love you.
dhammaan waxaan rabnaa inoo sheegna daawadayaasheeda caawiya ururkan oo la yidhahdo youth against hunger gabdhahan waa aragtaan da'dooda aad ayay u yar tahay banooniga kubadda cagta ma yaqaanaan ama weligood waxaa laga yaaba 2 jeer in daawadeen laakiin way yimaadeen shalay oo dhan arooti bay joogeen marka aan soo galay shalay marka idin mid marka ugu horreysay waxay yidhahdeen donate box bay isoo hordhigeen marka hawl fiican bay qabanayaan marka website-kan hoos baa ku qoraynaa fadlan caawiya ururkoodan waxaa la yidhahdaa youth against hunger website-kooda hoos ayuu ku qoran yahay okay waxay hilmaantay hal qof inay halkan ka salaanta go ahead And my grandpa, Baba Bumay, I love you. okay waa mahadsantiin dhammaantiin barnaamijkan wargelin wuu noo socdaa qatarkan yar dabadeed waata daawadayaal weli waxaanu bartamaha ku jirnaa barnaamijkeenu wargelin waxaa hadda ila jooga wiil dhalinyaro ah oo ah kabtanka kooxda Hillaac magaciisa waxaa la yiraahdaa Aasaye aan ku weydiiyo su'aale maxaa magacan khatarta ah lagu bixiyay Aasaye actually anagoo yar ayaan kubadda wada dheeli jirnay dhanka difaac markaan ka dheelaayana aad baan kubadda macnaha u taakil karin jiray saas ayaa lagu bixiyay marka hore baxana weeye waa banooni waa taakeyn jirtay taakada ku fiicneed waa garna Aasaye haddii ka soo qaad su'aal baan ku weydiinayaa haddii ka soo qaad goolhayaha kooxdaada ay dhibaato gaarto oo meesha laga saaro ma bedeli lahayd mise waxaa dadka jecel kaliya inay ka ciyaaraan dhexda oo aan goolhayo noqon waa bedeli lahaa aniga tiimka u dheelayo meel kasta noqoto inaan u buuxiyaan jeclahay hadday geemka noogu dambeeyana golkiibaha ayaa naga dhaawacmay 10 daqiiqo ugu dambeeyna anaa goosha galay waa garta maadaama aad tahay kabtanka kooxda Hillaac wax yar ma nooga sheegi kartaa kooxda Hillaac heerarkii kala duwanaa ay soo gaartay ilaa ay hadda kooxda Hillaac last year ayaa wax looga badiyay semifinal waxaana looga badiyay xoogaa si buuq ku jira midda kale sanadkaana ilaa hadda waxay ku soo baxeen 12 dhibcood oo hal geemna aan laga badin waxaanu ku rajo dheeriin inay koob ka qaadaan hadda leedma waxaan xasuustaa sanadkii hadda la soo dhaafay in aan isku aragnay mar Minneapolis sidee ayaa hadda u aragtaa maadaama hadda joogtid Columbus oo ay ka duwan tahay magaaladaada laakiin dadka hadda isugu yimid misleeda Columbus hawl fiican bay qabatay mise misleeda Minneapolis ayaa ka sii fiicneed runtii Columbus guddiga qabanqaabiyay koobkan aad baan ugu mahadcelinayaa inta ka shaqeysay inta time gelisay runtiina macnaha intaan meel marayay ama koob la qabanayo koob la mid maanan arkin markii siyaabo badan laga fiiriyo xagga organizationka xagga martigelinta iyo hospitalityga marka runtii aad iyo aad ugu mahadinayaa waa gartay hadda waxaad u timid inaad ciyaarahan daawatid mise koox ayaa waday actually saaxiibkay cali seedow oo Somali Eagle Columbus Eagles wato waxaan u ahay backbone ama aan taageeraya ama aan xag talo xag aan bixinaya waa gartay dadka kubadda ciyaara marka ay ciyaarta bilaabayaan waxay sameeyaan almiit wax la yiraahdo way isku leeyaan maadaama marka aad tahay fanaan marka aad rabtid in aad ka qayb qaadatid barnaamij ama rabtid inaad meel ka haystid ma almiita samaysaa ma bushab baa samaysaa maxaa samaysaa oo baaro waxaa jira anaga almiitada fanaaniinta ay leeyihiin waxaa la yiraahdaa brobo yani hees baa la xafidaa musician baa isu yimaado brobo la yiraahdaa marka almiitada fanaaniinta waxaa leedahay brobo marka bushab waxa ma samaysaan miya okay dad fara badan waa daawani waxaan rabay inaan u kala cadeeyo qofkii aan aqoon marka mid kale aan rabay inaan ku weydiiyo banooniga Soomaaliya soo ciyaar jirta oo maleynaya goolkii kugu quruxda badnaa oo weliga dhalaysay ma xasuustaa ma noo sheegi kartaa fadlan ha wuxuu ahaa bugle ama sigisaan la duduubay sharad baa jirta aanu ciyaal dhiganay ayadoo waliba rag iga laacibsanay maalinta iga soo horjoodeen 9 eber baan ku badinaa 9 gool iyo waxba marka maalintii ugu xasuusta badneed ayay ahayd runtii buglahaas yarka oo lugta ku darbeynayeen buglaha waa la isku tuuri jiraa xasaa oo lugta ku ciyaarayeen Soomaa lugtaanu ku ciyaarayna sigisaanta la duduubay waxay ahayn aanu banooni ka dhiganay marka garoonka waaweyn rag waaweyn baa ku ciyaarayna naga xog badan naga riixanahay marka buglahaas ayuu ahaa ma hilmaamin weli taas waaye dhinaca booska ka ciyaari jirtay difaac baan ku fiicnaa waa mahadsantahay kaasina wuxuu ahaa aadan Shimberles oo ah fanaaniinta reer Columbus waa soo noqonaynaa
actually waxaan aaminsanahay inay ahayd 2003 ama 2004 inay ahayd waxaan ku ciyaarnay St Paul Minnesota kooxo badan oo tournamenta meesha ka jiray marka maalintaas waxaan xasuustaa guul fiican inay kooxda aan u soo hoohiyay anoo hal gool oo aad muhiim aan dhaliyay oo kooxdana ay koob ku soo qaaday maalintaas was 2004 waxaan rabnaa inaad sir yara noo sheegtid haddii macquul tahay goolkii ugu khatarsanaa oo lagaa dhaliyey iyo goolkii ugu khatarsanaa aad qabatay taas cabsalaan waxay ahayd 2008ka marka oo finalkan aadnay oo la dheelaynay Sierra Leone oo garoonka oo Columbus Crew aan ku dheelaynay markaas horta gool oo aad iyo aad u macaan liga dhaliyay anigana waxoogaa macna waa dadaalay intaan dadaali karo goolal badan aan qabtay xasuustaa gool aad dhihi kartid gool si fiican oo qabatay ilaa inta ka xasuusan kartaa ma jira aad iyo aad ciyaartaas waxay ahayd inta finalka aadin ka hor semi finalka marka oo Liberia la dheelayno ciyaaro macnaha goolasha badan aan badbaadiyay marka gamekaasna aad iyo aad waxa si fiican u dhalay waana reynay 2-0 aan ku reynay waa xasuustaa markii garoonkaas ka ciyaarayseen waxaan rabaa inaan dadka Soomaaliya u sheego ninkan Faaruq waa goolhaye khatara marka aan noo goolhaye khatara weeye run bay tahay indhaaga saaray shaqada aad qabatay shaqo fiican ay ahayd aad ayaan ugu mahadsantahay thank you goolkii ugu fiicnaa koox ka dhaliyay wuxuu ahaa 2007kii anaa u ciyaaraya kooxda Ohio United markaas aan soo galay ayaan dhexda ka darbeeyay goolkaas ayaa igu fiicnaa ilaa hadda markaan joogo Burundi waa soo xasuustaa goolkaas gool aad u qurux badan ayuu ahaa okay sheekayaan markasta waa garta dadka way ka sheekayaan marka goolkaas dhalisay ma waartay kooxaha marka qof gool dhaliyo dhulku saas ugu tuuraa ama qof uu bodbodo ama uu ciyaaraa maxaa samaysaa marka gool dhalisay wallahi goolkaas dhulku iskuma tuurin gool aan ugu lahaa marka soo galay bareejo ay ahayd waxba ma ordi hada meesha iska socdo le ciyaartooyda ayaa igu soo orday laakiin badanaa gool marka dhaliyo waxba ma sameeyay celebration le ciyaartooyda le u tagaa soo salaamadaas ciyaaraha soo ciyaari jirtay ciyaartay ayaa isdhihi kartaa ugu fiicneed goolka ugu khatarsanaa oo dhalisay intaad soo ciyaaraysay run ahaantii waxaan dhihi karaa waa Toronto I remember back Toronto Somali Stars teamkii aan ku bilaabay aan u ciyaarayay ilaa 3 sano mar aan qaadnay Premierka ama Division 1ka gobolka Ontario markaa baan dhihi karaa way ugu farxad badneed gool qurux badan oo aan maalin galabaan xasuusto oo ka dhaliyay Centennial Stadium runtii marka taas ayaan waxaan dhihi karaa wiliga iloobi karin waa gartay marka goolka aad dhalisay sida hadda ciyaaraha aan ka daawana TV-ga inta soo orday dhulka saas ma soo turtay mise gacmaha kor tag runtii waa waagaas kul styleska mar walba kala gedisan yihiin runtii waa aad saaxiibadii ayaa ii diiday inaan celebrate gareeyo runtii korka iyo koray marka Janis uma helin inaan mataqaanaa celebration noocaas aan sameeyo wada daawadayaal wali waa taan idin balan qaadnay dad far badan ayaanu idin haynaa waxa hadda ila jooga Cabdullaahi Banye oo ka yimid Edinburgh Minnesota kulankan kooxdiina xagee ayuu idin mariyaa bismillaahir rahmaanir rahiim kooxda kulankeeda aad u fiican yahay hadeer ciyaaro ilaa 3 ciyaar ayaan soo ciyaarnay laba kamidna waa soo raynay marka alxamdulillah maarad rajadana aad u fiican tahay maadaama ciyaaro badan ay biri inoo sii dhaman yihiin oo aan rajayn doono insha Allah kuwaas inaan ku soo guuleysan doono hadii Ilaahay naftiisa waa gartay kooxaha Minnesota iyo Ohio dagaal baa ka dhaxay mar walba dagaal yaani xagga kubadda cagta sanad walba misleeda sanadkan koobka Minnesota koox kamid ah ayaa la tagay mise waxa leedahay waa dhulka lagu jiidiyaa oo reer Ohio ayaa la tagay wallahi horta ciyaar waa gelinka dambe sidoo hore loo sheegay marka hadda waxa laga yaabaa de kulli reer Minnesota ayagan inay macnaha ay u dhaarsan yihiin koobkan reer Columbus sidoo kale marka ciyaar waa gelinka dambe de qof walba lugtiisa wuxuu ku kala qaada haddii oo ay reer Columbus naga qaadaan rajadanada waa okay happy aan ku nahay hadda anaga aan qaadnana waa ku faraxsanahay marka xagga kulli dhibaato weyn ma jirto waata daawadayaal haddana waxaa la jooga Faaruq Umar oo ah goolhayaha kooxda Ohio United ilaa ay heer qaran ayuu soo dheelay waxa markaa ku ciyaari jirtay oo gool baa dhashay hadda u maleynaa meel fiican baa ciyaartu maraysaa marka Faaruqow kulankan sidee ayaa oragtaa dhalinyarada faraha badan ee isugu timid oo halkan ku ciyaaraya horta Cabsalaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maadaama oo macnaha oo dadka badan naga imaadeen Minneapolis Minnesota oo ka imaadeen San Diego California oo naga imaadeen Boston Massachusetts oo naga imaadeen Virginia iyo meelaha kale Washington DC iyo meelaha kale marka aad iyo aad ugu faraxsanahay maadaama noo imaadeen
anagana si fiican u soo dhawaynaynaa waa gartay faaruqow banooniga dhalinyaradu waxay inta badan jecel yihiin inay ka ciyaaraan dhexda iyo maxaa ku dhahay diyasho inay noqdaan inay nooba noqdaan goolhaye maxaa ku doortay inaad noqotid taas waxaa u maleeyaa talent oo ilaahay isiiyey inay tahay macnaa ani waxa aan doortay maahan waa hadiyad oo ilaahay isiiyey in aan boorteer fiican noqdo waana noqon doonaa hadduu ilaahay idmo weli waxaanu bartamaha ugu jirnaa wargelin hadda waxaa ila jooga saaxiib qaaliya waa tababare cali seedow magaca laga miskiin maaha cali seedow ilaa iyo waxaanu isla joognay xiriiqa qaxootiga kenya taariikh fara badan ayaa soo wada marnay laakiin hadda maanta waa tababare koox ayuu wataa kooxdaada waxaan xasuustaa shalayto wiil baa ku dhaacma oo lugtu ka jabtay wiilka arrintiisa xaggee maraysaa والله horta niyo xaaladiis maanta waan kala qalin galay alxamdulillah horta way fiican tahay wax dhibaato weyn ma jiraan laakiin ilaa adiga 10 weyd ka baxaysa daawadu ma aragto qofka marka la qalo marka hadda caawa adiga 11 baan balsanayna oo tago adiga everything alxamdulillah lugta kulli way jabtay macnaha laba lafood oo lugaha waa taqaan marka labadaba way wada jabeen insha Allah adiga xaaladooda hadda kulli waa fiican tahay ma sha Allah waa gartay xaggee ayay wax idiin mariyaan koox ahaan meeqa ciyaarood ayaa dheesheen imise ayaa badiseen ilaa hadda والله أفر عيارات أنا وذي مركي يقول رئيسي وحنفود استرنا تيم ويسكونسن كيمت هذا سجال جول وحاول قبض إنه لابو كدبنا وحن سكود عن التيم كبوسطن أفر اللي وقعت كان هذا وحن سكود سيد عن هالجيم من سورة لمن أدو داير وأدو في عنه أدو برون في عنه هاي إنكستون قبض إنه سد حال وقعت كان كدبنا يان جانرس كود عنه أفر اللي وقعت إنه adiga hadda waxaan joognaa second roundki insha Allah Britain waxaan arki doonaa Rochester New York wada daawadayaal waxa mar kale ku soo dhawaataan barnaamijkan wargelin bartamaha ayaan ugu jirnaa dad far badan ayaa sugaya in halkan salaan ka darsadaan laakiin hadda waxa la jooga Maxamed Soomaali magac weyn baa wata maxaa Maxamed Soomaali lagu bixiyay والله مع صومالي حال يقول بحي أنا أفريقيا جوجا وما قاعد اللي بحي حال يقول بحي ما دام اللي بحي حال عيال جي صومالي يمدو اسكو جرو مدو قبنا العيار ده سواء ما قاعد يقولن صومالي لهن صومالي ما قاعد يلقب سيد محمد صومالي يقول ده محمد صومالي يقول بحا محمد صومالي وعياريهن وعيار كوحدة صومالي إيجلز أن إلى هذا نقوله فر بدن أي سوهين أفر عيارات أي صوبدين أفر جول نوليه إلى هذا هوش هالكسكسي وتصعب أنا بنوني جوادا وتا إن Champions League إن كوحدة أي تاجرتا أنا كوحدة تاجره وكوحدة تيم كتشيلسي لكن سبدره Champions League منطقة أنت وأنا لكأت كادي وأنا كهرني Champions League السنة كان إن مركا إن واحد كودينيا مركي كوحدة تشيلسي لقبضيو محاسمة يسمى داس والله براد هرت أنا experience أولي هاي أنت كار مقالة مقدشة حوستا إن سنة دي لبعض كوني شنتي وعيارة إن جيرسي ليفربول جيرسي laga reebay quarter final ka gool laga dhaliyay nin Jersey taageera ayaa tooriga lagu dhuftay asagoo ma taqaanta gooshaas ku ooyay ninkan ugu geeriyooday marka wax badan aad taageeray footballka ciyaaraha marka experience weyn baa u leeyahay marka laakiin isma raaciyo just leewaan taageera marka waxaan taageeraa ilaa sanadii 2002 arigaas Jersey ee banoonigeedu u noqday mid ma taqaan caalamka laga bartay ugu dambeyntii ilaa ay Soomaaliya banooni ku soo dheeli jirtay waa garanaya asxaab fara badan ayaa leedahay marka fursadan maxaa uga faa'iideysanaysaa oo yaad hambaliyo halkan ugu dareysaa barnaamijka u gelinado ku soo weynay dadka asxaabtaada meel fara badan kala jooga runtii horaan u sheegay bahda sportiga oo dhan salaam ballaaran aan u jeedinayaa sidoo kale waxaan salaamayaa ciyaartooydii aan isla soo ciyaarnay sida maxaa la dhahay Farole qarxiye cabdifitaax qeylaweyne oo badda u ciyaari jiray hadda Mareykan ila joogo ragga waa kala firirsan yahay Yurub iyo Soomaaliya waa joogaan Senegal aan halkan ka salaamayaa Kalaayaan ka salaamayaa rag badan aan salaamayaa Goday aan salaamayaa ciyaalka xaafadda dhan aan salaamayaa marka thank you aad oo mahadsantahay waxaan rabaa inaan sheeg dadweynaha reer wargelin coach cabdifitaax tababar cabdifitaax waa tababar khatar kooxdiisa waxay ka badiyeen kooxo fara badan oo haaye ah aan Soomaali ahayn Spanish League ku jireen waa koox khatar African Cup USA ku jireen ilaa ay heer waxay gaareen fiican oo final marka waxaan leenahay hawsha halkaas ka sii wad dadkuna way ku mahadinayaan waa mahadsantahay
waxaan salaamayaa yacni bahda isboortiga dhammaan oo soomaaliyeed maaragtay inta haddana daawanayso marka waxaan jeclaan lahayn waxaan annaga samaynayno inay nagu daydaano ayagana ay sameeyaan annagana sida colombos ahaan annagana aan u tagno gobol kale ay noogu marti qaadaan ayaan jeclaan lahaa marka ma soo koobi karo hebel ma dhihi karo laakiin id alaale idda i garanayso anigoo ah mukhtaar umar ibraahim ku magac dheer saajin waan ii salaamayaa dhammaantiinaba waana waxaan jecelnahay yani maaragtay odayaashiina inaad na sabood garaysaan sidii dhallinyarada maaragtaan isugu keeni lahayn alxamdulilah rabbil waddankeennana ilaaha nabad noo yeelo asxaabteeda laga bilaabo weli waxad waa beri meelo badan baan soo maray oo anaa halka kusoo koobi karin aabbahay oo soomaaliya joogo cumar sabatar hooyaday caasha cali baar oo toronto joogto walaalahay oo toronto ku nool iyo dunida dacaladeeda soomaaliya hadday noqon lahayd imaaraadka yurub macnaha saad la socotay waa la baahsan yahay waxaan salaamayaa ka faa'iidaysanayaa xaaskaygaan aad u jeclahay safiya cabdiqaadir ilmahayga dhammaantood anagoo magacyadii kala horumarinayo dhammaantood waan salaamayaa iyo soomaali weyn meel walbay joogaan tv-ga wargelin baan lahaa waan salaamayaa xaaji dhammaantood waan salaamayaa dhammaan dadka ka kala yimid gobollada iyo maraykanka meel walba oo ciyaaraha iskugu yimid ayagoo dhan waa salaamaya gaar ahaan waxaan salaan khaasatan iyo ambalya halkaan oo u gudbinaya iyo guul badan aan u rajaynayaa Eden Prairie Soccer Team oo ka socda Minneapolis Minnesota especially xaafadda Eden Prairie waa xaafadda 12 sano aan degnaa from 2001 ilaa 05 inaan Bruno soo ciyaari jiray haddeerna kooxdeeda aan wado ilaa haddeer halkaan aan u joogo safarka dheer aan u soo galay waxaan rabaa horta teamkayga marka ugu horeeya inaan salaamo Ohio United waxaana ku xigto macna dadka oo marti oo naga imaadeen Minneapolis Minnesota waxaa ka mid ah teamka oo la yiraahdo Sida oo ka imaadeen magaalada Minneapolis aad iyo aad ugu salaam lahaa waxaan salaamayaa dadweynaha Soomaaliyeed dhammaan meel walba ay joogaan marka aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin Cabdullaahi Yuusuf magacaaga waxa weeye dad fara badan ayaa ku dhibay asxaabtaada dadka ku dhibi jiray yaa is leedahay halkan yaa ka salaamaysa asxaabtaada badanaa ka salaamaya halkan gaar ahaan Minnesota dadka jooga waa koodanaa boys Usaak tiimaa ka salaamaya oo Minnesota jooga Cabdullaahi Yuusuf 17 jir ciyaarta khatar ku ah waa mahadsantihiin ku soo dhawaada Columbus kale marka koowaad waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogto marka labaad waxaan salaamayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee maanta ka qayb galaya tournamentigan waxaana u arkaa inay tahay fursad qaali ah oo soo weetay bulshada ku nool North America deegaanka Mareykanka Canada oo mataqaana sport maadaama uu yahay isdhexgalka bulshada marka runtii waxaan u maleynayaa dhammaan dadka Soomaalida qaasata kuwa ku dhaqan gobolka Ohio in ay mataqaanta ay u tahay opportunity inay host gareeyaan waxaan salaamayaa familkayga especially hooyaday saara jaamac iyo dhammaan walaalahay kaasinka iyo friends meel kasta joogaan ayaa halkan ka salaamayaa magaalada Columbus Ohio aad iyo aad u salaamaya dhalinyarada Yurub joogto dhalinyarada Minnesota dhalinyarada Afrika aad iyo aad waxaan u mahadcelinayaa walaalahay qof kasta oo Soomaaliya walaalkay waayo adduunka ku nool insha Allah dhammaan asxaabtu waa tiro badanta qaar waxaa waaye ciyaalka xaafadda qaar waxaa waaye bahda isboortiga qaar waxaa waaye qaybta xaaji oo cameramanka meesha ka marka dhammaan waxaan salaamaynaa horta maamulaha guddoomiyaha tiimka master ilka case dhammaan waxaan salaamayaa tiimka ciyaartooyda oo dhan oo magaca iyo sumcaddan isoo gaarsiisay kadib waxaan salaamayaa nin layidhahda axmed cali xundur maxamed cabdulaahi iyo cabdikariin oo jooga dalka Australia kasokow waa bahda cabdisalaan caati aniga isla naqaan gruubyo kale oo badan ayaa jiro waxaan ka salaamay halkan saaxiibkay oo qaali iga soo safray Minnesota oo hadda intuu koob ka dhacay assistant coach camal ay ahaa oo maasha Allah marna goalkeeper ay ahaa Jibriil Umar Samatar marka dhammaan asxaabteeda waa salaamay xaaji cabdisalaan caato oo asagna bahda warbaahinta ee bartamaha marka cabdisalaan waa idin salaam dhamaantiin aad ayaad u mahadsan tahay cali seedow waxaanu ku rajaynaynaa guul fiican inaad ka soo hoyso ilaahayna waxaan ka baryaynaa wiilkii ku dhaawacmay lugta uga jabtay in uu ilaahay uu caafiyo uu buskoodo si dhaqso leh waa mahadsan tahay cali seedow halkan waxaan ka salaamayaa dhallinyarada iyo istuudiyaasha macnaha olol iyo bartamaha oo aad noo soo martigeliyo noo soo dhoweeyey oo brogaraamkaana qayb weyn ka qaatay waxaan kaloo ka salaamayaa halkan hooyadayna ada faarax iyo waxaan ka salaamayaa coachkayga cabdifataax faray oo mar walba markaan kubadda si fiican u dheelo aan soo xasuusto oon abaalkiisaan gudi karin oo levelkan ay soo gaarsiin
waata daawadayaal waxaa la soo gaaray gabagabadii barnaamijkeena maanta waa mahadsantiin dhammaan dadkii waraysyada na siiyey waa aad iyo aad ay mahadsantiin midda kale oo rabna hadda inaan idiin sheegno waxa weeye waxaa jira wiil Soomaaliyeed oo dhaawacmay wiilkan aad iyo aad ayaan ugu xunnahay dhaawac soo gaaray lug ayaa ka jabtay waxaan leenahay ilaahay waxaan kaaga baryaynaa in aad dhaqso u iskootid lafta kaa jabteena ay ku kamato si dhaqsaha dadka Soomaalida meesha joogana kulligood waa waraysanayay dadka dhan aad ay ugu xumaayeen waxaanu leenahay ilaahay ha ku badbaadiyo lugtana si fiican ha u kamato ayaanu leenahay meeshaas hawshaada kasii wad inkastoo kooxdaadii aadan la dheelin oo isbitaalka joogtid waxaanu ku leenahay kooxdaada heer ayay maraysaa goolal fiican ayay madaxaaga u dhaliyeen waa inoo toddobaadka soo socda iyo barnaamijkeena wargelin waa mahadsantiin